kulan wanaagsan dhagaystayaal hadda ka hor barnaamijyada fanka iyo suugaanta mid ka mid ah waxaan kaga hadlay calaacalka iyo sababaha keena maansada laga tiriyo waxtarka uu u leeyahay ruuxa guuldarraysta iyo sida uu ugu qaboobo waxaan tusaale u soo qaatay tix murooga leh oo baroor diiq ah kana timi gabayaagii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad dibnihiisa la dhowri jiray maansadiisana la isqaybsin jiray waa raaga ogaasi mugana calaacalka geerida ama maansada baroor diiqda intaan kaga kaaftoomo aan idinku talbeebiyo calaacal jaad kale ah maanso gabowga iyo dhibaatooyinkiisa la xiriirta oo uu tiriyey gabayaa ay raaga ogaas isku gada ahaayeen asi ay kala degmo ahaayeen waa aadan maxamed cabdille oo loo yiqiin aadan guray wuxuu ahaa hal abuur Soomaaliyeed oo ka mid ahaa hal abuuradii qarnigii 19aad maansooyinkooda lagu haasaawi jiray ama hal qabsiga laga dhigan jiray tixda uu mariyaa waxay hadiiba saaban jirtay golayaashii la isugu iman jiray ee reer miyigu ku kala warqaadan jiray haddii gabay iyo geeraar la yiraahdo wuxuu ahaa nin ka sheegan dhulkii ximan loo aqoon jiray haatan galgaduud loo bixiyay waxaa la wariyay raaga ogaas kolkuu maqlay tixihii aadan guray tii ugu horeysay midood inuu aad ugu bogay oo uu la yaabay waxa uu hadda ka hor ninka sidaa u gabyaya la maqli waayay inkastoo aan dhab ahaan loo hubin waxaa lagu wadaa baadhis dabadeed inuu dhashay hilaada 1840 kuna dhashay bariga ceelka Dhuusamareebeed hala yaabin marka aan leenahay ceelka Dhuusamareebeed maxaa yeelay sidaa baa loo yiqiin kolkii aadan guray noolaa intaan magaalo laga dhigin soddamaadkii qarnigan ka hor wuxuu ahaa nin dagaalyahan ah oo aftahamada geesinimo ku darsaday labada tilmaamood ee uu isku darsadayna waa labada dadkii aqoon jiray ay ku jeclaayeen kuwa sheekadiisa qabaana ay ku tixgeliyeen xilliga aadan iyo raggii la da'da ahaa ay noolaayeen ma ahayn xilli qof waliba caan bixi karay wuxuu ahaa xilli dhibaato iyo shiddo badan xilli aan hurdo macaan la seexan oo lagu wada noolaa cabsi joogto ah ragguna rikaabku joog wada ahaa nin adag mooyaane ma ahayn xilli dadku nolosha u wada sinaa wuxuu ahaa xilli xoolaha si ba'an loo kala qaadi jiray oo ninkii xoog iyo ciidan badani uu xaq iyo gar u lahaa wuxuu ahaa xilli geelu habeen baxro ku hoyan jiray ninka uu markaa u xareysan yahayna uusan hubi jirin inuu habeen dambe u xareysnaan doono iyo in kale waxaa lagu dhaqmi jiray xeer aan qornayn oo in yar loo hoggaansami jiray inta badanna lagu gacan sayri jiray wuxuu ahaa xilli gardarrada xalaal laga dhigtay oo dad aan yarayni ay maan la'aan u go'een ama ku xoolo iyo xilabeeleen waa xilligii uu ninka Soomaaliyeed ee dagaalyahanka ah intuu faanay ku yiri dayax 15 ah ama ku waday taasoo laqabaheedu yahay wallay habeenka caddadu 15 ka tahay oo dayaxu iftiinkiisa ku simo dhulka ee babalaashay wallay habeenka ama culma hiigaan ah reer degan oo nabad ah ku waday ama anigoo soo dhacay oo xoolahoodii soo mooro duugay soo laabad ahaa ninkaasi wuxuu ka mid ahaa kumanyaal rag ah oo dhaca dadka meherad ka dhigtay xilligii aadan guray noolaa wuxuu ahaa xilli duulaanka loo sinaa oo yar iyo weyn dhicidda geela loo wada heelana midda iyada ah uma hayo tusaale ka habboon dagaalyahan la oran jiray dhaga jarco oo ay aadan isku waqti ahaayeen ha yeeshee ka weynaa dhaga jarco wuxuu duulaan wadayo wuxuu col saaraba kolkii uu gaboobay ayuu maalin maalmaha ka mid ah arkay niman dhalinyaro ah oo col humaya markaas bay la noqon weyday inkastoo uu ka celaayahay da'awgeed inuu colka ah gadaal uga haro tix ay meelisidaani ku jireen ayuu tiriyey isagoo leh bari dhowr ma xaalayn jirinee haatan aan baqaye kamana baaqan karo guluf u baxay nimanka buuroode kubka iyo bawdadii bay jilcaye bulayga ii saara nin uu ninkaasi dhalay oo ilaa la oran jirayna waxaa laga hayaa inuu gabay ku yidhi reerkayga waa uga dartaa daanya nabadeede dar allaan ku noolaan jiray iyo duul la weeraro oo dugdugtaydu waa laba habaas kobay ka duushaay dabuubta oo kooban wuxuu xilligaas ahaa xilli ninkii kaliyo iyo ooga adag lihi magac yeelan jiray kii aan lahaynna boorka looga tegi jiray ama xoolaha nugulka ah iyo aqalada lagu dhaafi jiray
waxaad mooddaa inaan yaraha ku dheeraaday tilmaanta xilligaa ha yeeshee waxaan qabaa inuu hordhig caynkaas laba marmaan u ahaa mar haddaynu rabno inaynu dhab ahaan u garanno ninka aanu waayihiisa wax ka sheegayno. maxaa yeelay waxaa run ah intaadan qofka darsin inay laga maarmaan tahay inaad horta beeshii uu ku dhex noolaa aad in door ah ka ogaato. aadan gurey wuxuu ahaa nin xilligaa baan ku noolaa oo sida dadkii kaleba weerar iyo duulaan aan demin u taagnaa. wuxuu sidaas ahaadaba waagii dambe ayuu gabow la fadhiistay, ileen xoogga iyo dhallinyaronimadu waa barwaaqo dadka intii wakhti ah loogu deeqo ee aan lagu waarin. waxaad nin door ahaato oo aad hawl kasta oo timaadda u horraysaba mar baad soo dhacdaa, socod tahli weydaa oo aad hadal maahe haayad kale hayn weydaa, ugu dambaystana hadalkaba gabtaa. inkastoo nafta la jecel yahay, waa mararka ay suurowdo inuu qofku noloshaba geerida ka doorbido, ama ay dadkiisu ilka la jeclaadaan kolka uu iskii wax u qabsan waayo cid kalena callaal ku noqdo. gabayaagii carbeed ee labiid la odhan jiray waa kii lahaa: walaqad sa'imtu min alxayaati wa tuuliha wa su'aali haada annaasi kayfa labiidu. oo macnaheedu yahay nabee inaan nacay nolosha oo nacay dherarkeeda oo nacay booqashada dadka iyo weedhooda aan duxda lahayn ee ah tolow labiid siduu yahay. mid kale oo isaguna caan ahaa zuhayr ibn abi salma oo cimriyeyna waa kii lahaa: sa'imtu takaaliifa alxayaati waman yacish 80 xawlan laa aban laka yas'ami. oo macnaheedu yahay nacayoo ka quustay noloshiiyo howlaheeda heedha hagardaamadeeda oo gacalkaa waaye nin 80 tirsaday sidee buusan u nicin. bulsho waxay ku dhex gaboobeen muruqa iyo waxtarka oogada la isku tixgelin jiray aan u fududaan qof da'oobay oo in wax la taarta mooye aan wax kale soo kordhinayn. qofkii da'ooba gabayaa aad loo yaqaanba ha ahaadee wuxuu daryeel ka jeeqaaqi jiray warase uu dhalay oo inta badan xilliyada adagi barbaari u ahaanshaha waalidka ilowsiiyaan. mana jirin hay-ado dawladeed oo sida maanta dunida ka jirta u xilqaba xanaanada aabbayaasha iyo hooyooyinka uu gabowgu jilbaha u dhigay. aadan gurey kolkii uu gaboobay ee uu 80 kor u dhaafay ayuu xoog yareeyey oo aad iyo aad u jilcay. intaa waxaa ugu darmay xoolola'aan iyo dadkii ay wada degi jireen oo ka wada guuray. wuxuu arkay siduu nin door u ahaa dadkii uu ka jeestay oo uu wax tabantaaba u geysta ka waayey. dumarkii uu qabayna waxay taraan daaye qaylo iyo haaraan bay ku asqaysiiyeen wixii uu ka filayey oo turrinsho ahaana kama wehelin. gabow, cayr, wehel la'aan iyo dandarro oo idil baa mar qura ku kulmay. sidaa u dambaysay markuu arkayna aadan ma aamusina wuxuu yeelay wixii laga filayey nin Soomaaliyeed oo sidiisa oo kale maansaruug ah. gabay dheer oo aanan halkan ku wada xusi doonin ayuu mariyey. waxaa ka mid ahaa: 7 miyaan tiriyey waagayga sida wiil tarrada ceel marshay oo timaha deebeeyey, tin madow miyaan laga dayayn aniga tuurkayga, ma tallaabadaan la qarqaroo tiigsin luga mooday, ma tukubay sidii habartu kale tuugma ugu jeeda, bawdada miyaan tuujiyey iyo adaxda tiirkeeda. intaas kolkuu da'diisa iyo sida jirkiisu u dabcay ka yeedhi ama uu u tilmaamay astaamaha gabowgu sida ay xubin kasta uga saameeyeen, ayuu u soo dhacay saboolnimada u dambaysay waxa ay dhaxal siisay iyo weydnimada ay u soo jiiday. tafmadow haddaan qaadan jiray mara tilmaan dheer leh, tartarrada miyaan qayd ku xidhay taaka labadeeda, barkin luqunta kuma tiirso iyo tolona baarkiise, ma dhegtaan tagoogada gashaday sidii anoo tuuga, wax martiduu tamadisaa ninkay toos u hooyataaye, turugiis miyaan laygu arag tuludi waa geele, naaguhu ninkaan tuujinayn waa timlahayaane, taf miyaanan rogahayn sidii cudurku ii taabay. markaabuu xusuus isugu dhaqaaqay iyo inuu tilmaamo berigii aadan ahaa sidii ay arrimuhu ahaayeen, berigii dhallinyaronimada iyo taawada colaadeed ay ku dhammaayeen, berigii uu ahaa ammaanduulaha tilmaaman ee talo iyo tabarba u lahaan jiray. markaa buu yidhi: torog maalintaan fuuli jiray tahartu weynaatay, col tirtirihii anigaa lahaa tabaya duulaane, guuraha ana istaagi jiray idil tilmaanteede,
haddaan weerarkeedii tognay oo toon ka soo didinay iba toosan leeyay haddayna hor taslaynaysay tog biyale haddaan keennay oo koran ku taysiinay sidaan wax u tabayn jiray miyaan taabi kari waaye allahayow tahliishii jannaan adiga kaa tuugay waayo ma wuu calaacal dhallinyaranimo soo celin ma wuuse xoog iyo xoolo soo naqi inaan calaacal waxba tarayn aadan isba waa ogaaye naftuu ku maaweelinaayey waana danta gabayga calaacalka ah aadkiisaba loo tiriyaa dhegaystayaal gabowgu waa marxaladaha nolosha middood ruux kasta oo geeri degdeg ah ka nabad galaa waa marxalad uu filanayo oo uu inuu gaaro loogu duceeyo inuu gudbana looga duceeyo waa marxalad laga sii walwalo markii lagu sugan yahayna dhammaadkeeda laga argagaxo marxaladda xigta oo aan la jeclayn weeye waxaa argagaxa duqa ama duqda ku abuuraya waa marxaladda geerida nasashada dheer ee lagu tilmaami karo wuxuuna siina jacayl qabo midda uu aadanuhu ugu nacab yahay dadka niyadda wanaagsani waxay gabowga ku magacaabaan marxaladdii fakarka marxaladdii dib isu xisaabinta marxaladdii waxgarashada bisil kuwa sida kale wax u eegaana waxay ku sheegaan marxaladdii itaaldarrada marxaladdii shaqogabnimada marxaladdii fadhiga daalka leh marxaladdii geeridu ku xigtay iyo magacyo kale oo muujinaya waxay dadku ka qabaan marxaladdaas iyada ah ee in la gaaro iyo inaan la gaarinba mar la wada jecel yahay magac kastaba ha la siiye gabowgu waa marxalad ka duwan marxaladaha nolosha ee uu qofku soo maro wuxuu waxyeello gaarsiiyaa dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee xubnaha jirka iyo shaqooyinka maskaxda ee ay xusuusta iyo wax kala soocu ugu wen yihiin waxaa qofka gabooba hareerihiisa ku bata dhallinyaro uu afgaran waayo waxaana ku yaraada da'da uu ku abtirsado ee ay fiicnaan lahayd inay gabaad isu noqdaan waxyaalaha oo lagu daray dhibaatooyin uu qofkii qabaa ogaan karo ayaa daraaddood gabowga loo necab yahay oo looga walwalaa gabowgu waa marxalad markii la gaaro had iyo goor laga cawdo oo qof kasta rag iyo dumar labadaba u daran siiba waayadii hore ee daawada iyo daryeelka caafimaad aan sida maanta loo heli jirin ruuxii coobis noqdaana uu ku raagi jiray waab uu geediga aakhiro ku sugo dalkeenna beryo sii horreeyey ilaa maantadan la joogo qofkii 60 kor u dhaafa waxaa loo qaadan jiray mid caleentiisii cirka ka soo laalaado oo berri ama saa dambe mid ahaan axankiisa la cuni doono khaatumada allow kuu suubi ayay ahaan jirtay ducada loo akhriyaa kolkii lasoo booqdo inkastoo aan aadanuhu nafta ka samrin ilaa ay ka dhacdo haddana jirro iyo gabow qofkii ay isugu darmaani wuxuu isu qaataa inuu reer aakhiraad yahay qofkaas isaga ahi hadduu bacaskii iyo qiyaamaha rumaysan yahay wuxuu weheshadaa tusbaxa iyo weesada wuxuuna badiyaa waanada iyo ka sheekaynta hebeladii iyo waayadii uu soo maray waayadaa iyo hebeladaa oo uu inta badan u arko inay ka fiican yihiin waayada uu markaa ku sugan yahay iyo hebelada agagaarkiisa ka muuqda rag waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi ayaa ugu badan maahmaahaha uu wariyo sidaa kolka uu leeyahayna isuma haysto innaba ha la ekaatee inuu ku dambaabayo maxaa yeelay raggaas hore iyo hadalkiisuba waxay u matalayaan cadcartii dhallinyaranimo kaftankii maanla'aaneed xudxudadii dumarka iyo u dhagraare intii macaansiga lahayd ee codkooda miyirka qaadka leh waxa la yidhi doqonnimo uusan u dhalan ayuu gabowgu qofka u keenaa nin soomaaliyeed oo aad u cimriyey baa laga sheegay inuu yidhi ileen ilaahuw cimrigayga dheeree intaan lahaa doqonnimo unbaan u alla baryaayey rag badan oo waran iyo weerba lagaga dambayn jiray ayuu gabowgu soo riday oo carruurnimo u celiyey dabadeedna dhallinyaro xilkas ah iyo kuwo aan xilkas ahayniba wuursi ku dhaafeen markay gabax yidhaahdaan dad yar baa waxay raggaasi gudi jireen ama geli jireen dib u fiiriya daryeelka ay helaanna in badan buu ka yaraadaa midka ay u baahi qabaan xaajadii ku dhaaftaba mid baa lagu xasuustaaye xalay iyo wixii maanta dhacay waaba kala xaale xallad lagu kulmaba tii kalaa xarafka sii dheere intaad xaami tahay buu nafluhu kuu xabiib yahaye kol hadday xagluhu kaa dabcaan xiisahaa dhimay
badan oo wada door ahaa ayaa gabowgu geyeysiiyey inay kor tegi waayaan oo muruqyada ooga oo dabacay ku jir rabeen aqallada dhexdooda inay ku dana bogtaan dabadeedna dad kala daaye kuway dhaleena jeclaysteen maalin aad u dhow inay xayun baaqin ku qaadaan soomaalidii hore ragga caynkaa ku dambeeya qaarkoodii hibada u lahaa waxay marin jireen maansooyin calaacal u badan oo ay dano dhowr ah ka lahan jireen maansooyinkaasi mar waxay u ahaayeen maaweelo iyo dhaymo nabar waxay isku ilowsiinayeen dhibaatada markaa haysata maxaa yeelay sida uu cilmi nafeedku qabo qofka dhiban waxa u roon waxa haysta intii uu qarsan lahaa inuu ka eed sheegto oo uu daboolka ka qaado midda kale maansooyinkaasi waa naxariis raadis oo qofkaa gaboobay baa raba in cabashada aawadeed wax loogu qabto daryeelkiisana loo dhaga nuglaado midda saddexaadi waxay tahay qofkii oo doonaya inuu dhallinyarada hareerihiisa ka buuxda ka dhaadhiciyo inuu kol danab ahaa sideeda oo kale u xaragoon jiray la tixgelin jiray kobta uu fadhiyo aan si fudud lagu dhaafi jirin haatanna tabarba yaan lagu eexsane uu mudan yahay in talo la weydiiyo maxamed xaashi cabdi wuxuu ka mid ahaa odayadii soomaaliyeed ee sida weyn u cimriyey ha cimriye wuxuu ahaa gabayaa ay tix qurihii naga soo gaadhay gabayadii malahayga badnaa ee isaga la iishay tixdaa oo uu dhibaatooyinka gabowga ka tiriyey dad aan yarayn oo korka qaybsanna aan la kulmay waxay ahayd laba laysku dhaabay iyo waxaan dheeg wiyila qaatay amaan khayli dhoolaha madow gudub ku dhaaraamay dhabareera guureen miyaa laygu wada dhaafay ushaan dhaabin mooyee hubkii ma iska wada dhiibay ma ka dhaxay dhawaaq baxaya iyo dheelmataan gabana dhuuniga isii yahay miyaan sida dhallaan ooyey waxaan dhowrsanaa ceeb miyaa igu dharaarowday raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday kuwii aniga ii dhaxay miyaa dhimashaday dooni maxamed allaha u raxmadee wuxuu sheegtay itaaldaro iyo tabarxumo uu gabowgu u soo jiiday meelisyadiisa wuxuu ku bilaabay tilmaan uu ka bixiyey dagaalyahankii uu jeer ahaa iyo siduu u xashaashi jiray kolkuu adduun ahaa ee ay cadcartii dhallinyaranimo ku dhammayd raggii uu awowaha u ahaa iyo dumarkii uu qabayba sida tixda ka muuqata daryeelkiisa way ka cuslaadeen ha yeeshee waxaan filayaa erayadaa kolkii la maqlayba inay arrintii isbeddeshay oo odayga loo jeestay waa male uun keli ah ee waxba ma hubno mala rag waa noolina rag horaaba yidhi waxaan dhowrsanaa ceeb miyaa igu dharaarowday raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday kuwii aniga ii dhaxay miyaa dhimashaday dooni isna wuxuu ahaa gabayaa soomaaliyeed oo dhowr goor marxaladda gabowga wax ka tiriyey salaan markay ciradii saabatay raggii ay isku da'aadda ahaayeen markay duul aakhira u bateen ee uu is arkay isagoo dhallinyaro ku dhex jira markuu arkay isaga iyo wad inay kalama maarmaan yihiin intaa oo idil markuu arkay ayuu u leexday dhanka cibaadaysiga iyo u tabaabushaysiga la kulanka eebbe gabayadiisii mid ka mid ah oo waana ahaa uuna ula jeeday cabdilaahi baashe nin la odhan jiray ayuu qayb ka mid ah kaga hadlay waxa uu gabowgu soo gaarsiiyey iyo waxa u eg wuxuu yidhi dhallinyaro cilmowgaa tashiga cara ka qaadaaya nin cibaaro badan lagu shubay oo caaqilaan ahaye calli yahay ciradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wad isaariye marka madaxuu cawskay dhigiyo cigay lixaadkii cadcad waxaan lahaan jiray haddaan ciidayoo dhacaye casho noolba waxaan fiiriyaa curufadaydii raggaannu isku ciidamis ahayn caadna laga waaye cidla yuurur bay dilay sidii cawlka dibadeede calool qulubtay waa yaab asaan cudur la tiicayne nafcan kuurka loo yimi rabbaa caaqibuu garanne qorraxdoo casar joogtaanahoo ciiri garabkiiye cimrigaan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye sidaan cadadka biluhu tirsaday waa cabsanayaaye
maxaad cuni ha joogtee adduun caashaqii dhigaye. filayo inaysan waayadaa ka fogayn ayuu haweenay guursaday dabadeedna siday caadadu ahayd waxaa isagoo yaradoona u yimid seedigii oo ahaa 20 jir ay hawo adduun kolba dhan u wado salaan isagoo ninkaa u boholo qodaya una dardaar warinaya ayuu gabiyey wuxuuna gabaygii ku daray calaacal xagga gabowga ah oo aad loo wariyo loona yaqaan gabaygii wada marin maynee waxaa ka mid ahaa min 20 buuxsaday adduun waa lagdamayaane haddaan anigu loo fari iqiin haatan lowlabaya nin ciradu lamaanaa dhigtoo laylyan baan ahay 12 baan kor maray waana la hubaaye lafta dhabar laxaadkay dabciyo laafyihii gacanta lubidaydu layl xalay maledin laadadiiyo taahe waa taalan leemada indhaa aragu liitaaye liiqliiqad baan ahay sidii lula dabayleed. dhegaystayaal inkastoo gabowga iyo geerida la isu aaneeyo haddana run ma aha odayaasha iyo islaamaha guyaasha badan tirsaday inay geeridu gaar u tahay. maxaa dhallinyaro ciidda hoosteeda lagu soo ogaaday duqii dhalay ama caloolgalkooda u soo joogayna uu weli soo taagan yahay. waxa la yidhi inan dhallinyaro ah ayaa u fiirsaday aabbihii oo inta gaboobay madaxu dhaydaa noqday inay geedayey isha baalkeeda u saaran tahay ayuu ku hamiyey inankii kolkaabuu inta sarbeeb door biday duqii ku yidhi alla aabbow maxaa malakulmawd midho u bislaaday. odaygii baa inta gartay yidhi hadda curdankana waa ku cunaaye ogaanteeda lahow. dhegaystayaal sayid maxamed cabdilla xasan ayuu ahaa ninkii yidhi geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay. ninkii aan geel lahayni waagii miyiga aad loo joogay ee ay nolosha ku wada xirayd lama tirsan jirin isaguna nin nool oo asaagii wax la qaybsan kara isuma u haysan. wadnaha uu qofku ku nool yahay ee haddii uu joogsado uu dhimanayo ayuu sayid maxamed geela ku tilmaamay. waageedina ma uu jirin nin erayadaa maqlay oo aan u bogin ama aan odhan ba ee wadaadku run badana. waxay ahayd fikrad nin waliba qabay oo aan muran innaba ha la ekaadee ka furmi jirin. raganimada iyo shakhsiyadda qofka iyo lahaanshaha geela ayaa la isku xidhi jiray. nin kastaa intuu midka kale ka geel badan yahay ayuu ka magac dheeraa kana maamuus roonaa. hodantinimada ruuxa waxay qiyaasteedu ahayd inta halaad ee golihiisa loo soo dheelmo iyo inta kadin ee ku magacaaban. wax godob lagu galo oo ninka reer miyiga ahi uu dadkiisa ku seegi jiray geela ayaa ugu weynaa. rag badan baa u godgalay iyagoo dagaalkeeda ku jira ama dhicinteeda u fogan. salaad iyo faralkii aadanaha muslimka ah uu rabbi ku lahaa ayay dad badan ilowsiisay waxaan loo baahnayn iyo rubadgooyana u horseeday. tuugadu soomaalidii hore ceeb bay ku ahayd ha yeeshee geelu kuma jirin. haddii uu qofku la oreerood ka haysto ama aryo mooro duugo waxaa loo qaadan jiray wax dhaleecaysan oo aan caaqibo innaba lagu ogeyn. haddiise uu geel agoomeed dhaco oo uu reero meel deggan tuluud ka dhowro waxaa loo haysan jiray geesi maamuus leh oo raganimo meel dhigtay. dhicidda geelu waxay ahayd tillaabo nin kasta oo rag ah sidii la odhan jiray laga fili karaayey. kolkii uu ku dhaqaaqana aan lagu argagixin ama lala yaabin. tallaabada caynkaasa waxa keliya ee wax lagaga qaban jiray waxay ahayd dhac kale iyo degmooyin nabad weyn u fadhiya oo magaskooda kas iyo bareer loo soo meersado iyadoo lagaga aarsanayo ninkii ama nimankii awal hore wax soo dhacay. geelu habeenba xero ayuu ku hooyan jiray. ninkuu markaa u xeraysan yahayna ma uu hubi jirin inuu habeen dambe u xeraysnaan doono iyo hiirta waaberiga culma hiigaan ahi inuu horta marsan doono. fardaha iyo geela cid loo tirin jiray ma aysan jirin. taasina waxay ahayd xeer aan qoraal ahaan loogu heshiinin asii qof waliba hiiga ku hayey. hebel geeliisi lala teg kolka uu qofku ku warramayo
midka dhagaysanayaa wax yaab ah ma uu muujin jirin. su-aasha uu warkaa ka celin jirayna waxay ahayd ma laga daba tegey yaase raadceeyey, marna maxaa loola tegey iyo muxuu galabsaday ma odhan jirin. haddii ay dhacdo oo uu yidhaahdana waxaa loo qaadan jiray nacas damman oo aan dooc iyo dareen u hayn sida loo nool yahay. boqolaal dhallinyaro ah ayaa dhowr halaad oo la kala qaaday aawadood u qorgo'i jiray, ha dhacayeen ama ha dhicinayeen. geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay oo ay rumaysnaayeen aawadeed ayay waxaa oo dhan u yeelayeen. inaan geel ma ahay nolol kala jirin ayaa ka dhaadhacday. taasina waxay gayaysiisay inay dhib mooyaane raaxo kala tagaan, inay godob dhabarka u ritaan, in la laayo ama ay wax laayaan. geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay oo uu ninka reer miyiga ahi sidii diinta u rumaysnaa ayuu gabadhiisa ugu diidi jiray midka geela yar oo gayaan umateed ku odhan jiray maalinta uu guurka inantiisa u hawoodo. geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay oo ay xeer degsan ka dhigteen aawadeed ayay wiil iyo aabbahay ku kala tegi jireen markay bixinta geela ama dhaqaalihiisa mid ahaan arrintu joogto. badanaa inta barbaar qoyskoodii uga carooday aabbihii oo tulud ama laba kaga masuugay aawadeed, dabadeedna waran iyo gaashaan u qaatay inuu xoog ku soo xereeyo mid uu leeyahay oo uu ku ciilbaxo. xarbi gaadhooy xarbi niman gelin oo xabada ridin soo xerayn waah ayay ku haysi jireen. mar kale waxay odhan jireen meel xinjiritaal oo rag ku xarbiyey xareed ololaay. su-aasha ay kolka dhallinyaradu halkan iska weydiin karaani waxay noqon kartaa sidee ayuu geelu soomaalidii hore halbowle ugu ahaa, waa maxayse dheeftii uu lahaa oo waxaa oo dhib ah ama garraf ah loogu galayay. taas jawaabteeda waxaa habboon inaan u dayno dadkii noolaa xilligii calanka geelu babanayey oo iyagu runtii aqoonteenna ka badan u lahaa. bal iyaga aan ka ogaano gaar ahaan suugaanlaydii hore sababihii heerkaa gaarsiiyey iyo waxa ay xoolaha kale kaga saraysiiyeen. barbaarkii geela u heesay waa kii lahaa anoo suub iyo soobir maalaan seexan waayay, sac nin haystiyo sagaaraystiyo sabool ariluhu sabaankii dheer see u nool yahay. wuxuu inankaasi ka yaaban yahay ninka aan geela lahaynin nolosha uu ku nool yahay midabka ay yeelan karayso, siiba kolkii uu jiiraalku dheeraado ee ay abaar diirata ahi dhulka wada saabato. loolayda ariilayda iyo dabatadaba wuxuu u haystaa koox aan isdhaamin oo wax u soo socda mooyaane aan wax hanti ahi hadda fara ugu jirin. abwaan soomaaliyeed ayaa beri la weydiiyey maxaa geela xoolaha kale looga jecel yahay. markaa buu yidhi 3 waxyaalood oo aan lala wadaagin: cadku raacda, cadku deeqa iyo caana ku doojiya. waa adkaysi, waa hilib cunno markaas ah iyo kayd bagala, oo waa caano beela deeqa. wax la mid ahi inay jiraan soomaalidii hore ma rumaysnayn, waxaana ugu daraa cabdigahayr oo beri yidhi aakhiro nimaan geel lahayn lama ammaanayn. magta ayay ku bixin jireen oo 100 halaad baa nin la dilay reerkooda lagu sanadsiin jiray. imise dagaal oo faafil ahaa ayaa lagu baajiyey geel la isa siiyey. imisuse dagaal baanay ka qarxaday dhowr halaad oo laga masuugay dartood, dabadeedna ay 100 qof u ruux weyday. yaradka ayaa lagu bixin jiray oo ninka geela leeyay inkastoo uu oday gabooba yahay sahal bay u ahayd in gabdhaha tan ugu quruxda iyo qiimiga badan u guursado. gabayaaga haddanba nool ee la yidhaahdo maxamed guuleed faarax cadde ee reer galgaduuda ayaa beri gabay ammaana geela u tiriyey ama geeraa. waxaa ku jiray dhowr meelis oo odhanaya